Assalaamu calaykum siraha joogteynta xamaasadda. Siraha joogteynta xamaasadda waxaan ka soo qaadan doonaa 5 qodob kuwaas oo ah qaar ka caawinaya joogteynta xamaasaddaada gudeed. Haddaad sida yihiin ugu dhaqantana wax badan kaa bedelaya noloshaadana wax badan kusoo kordhin doona. Haddaba waxaan si kooban idinku soo dhigi doonaa sharaxaad gaaban idinka siin doonaa 5taasi sirood. 1. Go'aan qaadasho. Qodobkani waa ka ugu horeeya siraha joogteynta xamaasadda. Go'aansan inaad ahaato mid joogteeya xamaasaddiisa la'aantiina aanay suurtageli karin hawl qabanaya. waayo haddaanay go'aan qaadasho jirin waxba maba qaban kartidba. Waa inaad qaadataa go'aan ah inay tahay xilliga aad hoos u dhigi lahayd cabsida iyo niyad jabka, taas oo kaa caawinaysa inaad ahaato mid u xamaasaysnaada si joogto ah. taas oo aan ahayn mid aad meel ka baranayso laakiin ay tahay mid aad ka samaynayso maskaxdaada gudaheeda. 2. Qorshe la'aan wax walba way isku qasmayaan, culayskoodana way yeelanayaan. Yeelo qorshe qeexan oo ku qotoma waqtigaad haysato. qor waxaad doonaysa inaad noqoto sida doonaysa inaad u gaadho, habkaad ula tacaalaysa wixii ka hor yimaada iyo weliba goorta aad rabto inaad gaadho. waayo inaad qorshe lahayni waxay ka dhigan tahay sidii qof ku ciyaaraya garoon bilaa biro ah, taas oo macnaheedu yahay inaanad garanaynba waxaad doonaysa inaad noqoto. qorshaha wuxuu kaa caawinayaa inaad ahaato mid xamaasanaysan mar walba, una hamuun qaba inuu gaadho halkuu rabo. 3. Ficil iyo rumaysasho. tani waa tallaabada ugu muhiimsan ee aad qaadayso, waayo haddaanaad ficil la iman waxba suurtagal kuu noqon maayaan. waayo howlqabashadaadu waxay ku xidhan tahay inaad u dhaqaaqdo oo aad qabato adigoo aaminsan inaad ku guulaysanayso kaana soo go'day. dhammaan qodobadan waa qaar aanay midna midka kale la'aanteed shaqayn karin. 4. U dhaqan sidii aad guul u gaadhay oo kale. inaad u dhaqanto inaad guul gaadhay sida inaad u dhaqanto inaad gaadhay guul maaha wax kaaga baahan inaad hawlo culus qabato. kaliya waa inaad sawirataa inaad tahay ciddaad doonaysa inaad noqoto. tusaale ahaan, haddii aad rabto inaad noqoto macallin, waa inaad carruurta kaa yaryar wax u dhigtaa una noqotaa macallin. waa inaad barataa habka macallinka u dhaqmo adiguna samaysataa. waa inaad barataa habka iyo hanaanka casharada loo gudbiyo ama samuurada wax loogu qoro. 5. Sawirasho. qodobkan waxa uu sheegayaa inaad sawirato mar walba halkaad doonaysa inaad gaadho, waayo haddaanad arkayn halkaad rabtay inaad gaadho oo aanad maskaxda ka aqbalin kana sawiran waddadaad doonaysa inaad marto, way kugu adkaanaysaa inaad gaadho meeshaad rabtay oo aad noqoto ciddaad u heelanayd inaad noqoto. ka fikir adiga oo gaadhay meeshaad rabtay, deetana dib u yar eeg howlahaad soo qabsatay ee aad ku guulaysatay. tusna naftaada oo ka dhaadhici inaad qaban karto wax walba